waxaa maanta magaalada Bohol ee xarunta gobolka Cayn lagaga dhawaaqay jamhadda SSC oo ay yeelanayaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn. Munaasabada lagu shaacinayay jamhadda SSC ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarada aqoon-yahano iyo taliyayaasha ciidamada jamhadda SSC. Cabdirashiid Xuseen Cali ayaa loo doortay gudoomiyaha jamhadda, halka taliyaha ciidamada jamhaddana loo magacaabay Maxamed Axmed Cali Cawl. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jamhadda Cabdirashiid Xuseen Cali, sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada jamhadda SSC Maxamed Axmed Cali Cawl. waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dadkii isu taagay inay jamhaddani hirgasho oo isugu jira siyaasiyiin, qurbajoog iyo isimada dhaqanka iyo ganacsato iyo cuqaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku nool gobolada Sool Sanaag iyo Cayn. qodobka saddexaad waxaanu soo dhawaynaynaa cid kasta oo diyaar u ah xoreynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn. waxaanu hubnaa dhulkeenna waxaa qabsatay jabhad hubaysan, waxaana ka kicin karta waa jabhad hubaysan weyn. sidaa darteed waxaanu leenahay guud ahaan bulshada Sool Sanaag iyo Cayn inay waxa weeye taageeraan naf iyo maalba jabhaddan oo dib loo cusboonaysiiyey dhammaan siday u dhan yihiin. SSC taliyaheedii ciidamada SSC saad uu horeyba idinku sheegay nimankii iga horreeyey. marka maanta ereyo kooban dee raggii hore ayaa idiin sharxay waxay tahayba. ereyo kooban baa idin dhahayaa. ereyada kooban mid waxaan dirayaa bahda SSC Sool Sanaag iyo Cayn. waxaanu nahay dad isu taagay midnimadeennii, xornimadeennii oo aan dulmi aanan iskugu taagin. inaanu uma dulmino, inaanu uma dhibno iskugumaanu taagin. taa waxaan ku darayaa ciidamada jira Sool Sanaag iyo Cayn daafaheeda kala jira ee SSC waxaad ogaataan maanta laga bilaabo inaanu taaganahay garabkiina. markaan taa ka gudbo waxaan ku soo gunaanadayaa, anigu ku dheerayn maayo hadalka. waxaan leeyahay ikhtiyaarta meeshan isugu timid looma baahna inaynu maalin walba qowl dhexda ka jaban aynu isu sheegno oo aynu ku qowlno wax aan run ahayn. ikhtiyaarta meesha isugu timid waxaanu ka baryaynaa oo ka doonaynaa in ay noogu kaalmeeyaan midnimada, wanaagga, khayrka, oo ay danteennu teenna aakhiro iyo teenna adduunkuba ay ku jirto. waxaa keenay jabhadda in lagu dhawaaqo dhibaatooyinka loo geysto shacabka ku nool Sool Sanaag iyo Cayn. waxaa ammaan naga mudan oo duca naga mudan oo waxqabasho naga mudan dadka soo abaabulay iyo dadka kale ee raacay. dadka soo abaabulay ee dalka qabsaday ee xuquuqdayada afduubka ku haysta ee dilaalinta kala heshiiyey ayaanu macnaha annagu aanu ka soo horjeednaa oo macnaha maartay dhismaha maamulkan ama maartay jabhaddan uu ka jawaabayaa in laga adeego dowladda kumeel gaadhka waa noog tahay, caalamku waa noog yahay, ilaahay waa noog yahay, xuquuqdayada baan ku taaganahay, dulmina ma wadno. intaasaan ku soo gabagabeynaya. dacallada aanu ka nimin aad baa loogu soo dhaweynayaa. waxalaali waxaan u qabanayno waxaan ka haranaynaa ma jiraan ciidan iyo calafba. xafladdan aad baan ugu mahadcelinayaa iyo dadkan soo abaabulay ee juuliga ku bixiyey ee soo qaban qaabiyey. hadalku ma badna, hadal hore baan loo yidhi intii odhan lahaa. maaha markii ugu horeysay ee jamhaddan SSC lagaga dhawaaqo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn. waxaa xusid mudan inay horey uga shaqayn jirtay gobolada SSC qaybo ka mid ah, hase ahaatee ay ka baxday meesha markii la yeegleelay maamulkii Khaatumo sanadku markuu ahaa 2012. Cali Maxamed Xasan, Kalsan TV, Bohol. bismillaahi raxmaani raxiim. allahumma salli calaa sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sida lala wada socdo shalayto waxaa telefishinada ka baahayay qolo dhalinyaro ah
oo buuhoodle aydeeda intay ciidamo ku shirisay dadna u yeedhatay oo yidhi waxaanu nahay jabhadda la yidhaahdo SSC waxaanu xoreynaynaa carrada sool iyo sanaag iyo buuhoodle baanu xoreynaynaa marka u horeysa buuhoodle 29 sanadooda tegey inta ay xaalad soo martay buuhoodle iyo aageeduba inta xaalad soo martay waa la garanayaa horumar la-aanta dagaalka dhibta intaas oo dhibaato oo buuhoodle soo martay qolo kasta jabhad sheeganaysay oo ama SSC sheeganaysay ama khaatumo sheeganaysay ama qolo kale ahayd waxay imanayeen intay ka yimaadaan carooyinka kale uu dego beesha buuhooda degan ay degto intay ka yimaadaan bay imanayeen buuhoodle meelaha kale ama laascanood ha ahaato ama xudun ha ahaato ama ceergaabiya aageeda wixii degan ha ahaato dad nabadooda ilaashada wixii dhibaato wadana waxaa tala noqotay orda buuhooda taga buuhoodla wax laga abuuraayo taga waxay noqotay in cid kasta oo dhibaato wada oo mashruuc wata anuu jabhad ku sheegi maayo waa mashruuc weeye inay saldhig usoo doonato buuhoodle hadduu reer buuhoodle yahay oo dan leeyahay iyo haddii uu beelaha kale degaanka dheraran degan yahayba waxay yidhaahdaan jabhad baanu samaynaynaa waad ogtihiin siba yaa jirtay rag baa sameeyey markay sameeyeenna waxa khasaare ka dhacay waxay ku dambeysay wixii ummadda dhexdeeda ay dhib u geysatay wixii darisyada dhib ka dhacay waad garanayseen meeshii ku dambeysay iyo wixii aakhirkii ku dambeysayna waad ogtihiin kuwii ka dambeeyey ama heshiisya ha lagu galo ama sideeda burbur kale oo kala jab ha ku dhaco meeshay iyana ku dambeeyeen waad garanaysaa wax allaala wixii khasaare jabhadaha la magacaabayay soo maray meelaan buuhoodla ahayn oo ay ku dhaceen ma jirto cid ku dhimatay oo boqolaal qof kaga dhimatay oon buuhoodlahayn ma jirto waxaa bilaabayay nin waxaa bilaabayay laba waxaa bilaabayay saddex wax loo dhan yahay ma ahayn labadaa iyo saddexdaa iyo afartaa nin ee arrinkaa bilaabay waxay ku dambeynaysay in boqolaal reer buuhoodle ku dhintaan horumarkii ku lumo awalba iyadoo gaabis ahayd iyadoo in badan soo dhutinaysay in reer buuhoodle uun lagu baabi'iyo yay ku dambeysay jabhad baan sameeyey horta wax jabhad la yidhaahdo oo la sameeyey ma jira waa mashruuc waxay noqotay oo imika halkaa caalo ka noqday mashruuc lacag lagu doonayo oo ciidan lagu samaysanayo oo ciidankaasiba uu benefishar doon yahay oo lacag doon yahay in ummad lagu xasuuqo in ummad lagu kala dilo in ummad lagu baabi'iyo waxa arrinkan iminka wadaa waa rag yar waa inan buuhoodla jooga iyo nin ama laba xamar jooga oo reer buuhoodla oo lacag bixiya rag ay ka dunqaataan oo haddii ba idinkeeda leeyahay iyana reer buuhoodle ah oo ilaa Addis-Ababa jooga reer buuhoodle marka ugu horeysa dhiiranaan ka weyn iyo islihi ka weyn iyo dhibaato ka weyn inta wiil istaago ilaa jabhad baan samaystay buuhoodlaan baabi'inaya buuhoodle yaan baabi'inaya waxaanan diyaar u ahay inaan wixii buuhoodla deris la weeraro wixii buuhoodla deris la
inaan la weeraro oo reer buuhoodla ay islaayaan oo aan aniguna marba meel lacag kaga soo urursado oo rag igu taageero oo kii xamar mashruuca laga siiyey uu lacag ii soo diray ee lidhi xamar waxaa ka qabo oo la og yahay kuwii xamar mashaariicda ka helay inay buuhoodle fitin geliyaan waxaa xaqiiqa reer buuhoodle 99% inay arrinkaa u midaysnayn inayan raalli ka ahayn in dushooda inama yaryar iyo rag meelo kala joogaa ay doonayaan inay buuhoodle ku dhibaateeyaan waxaa xaqiiqa hadda inay taagan tahay reer buuhoodle dhexdiisa in fitna ka dhacdo buuhoodle cidi ma leh oo cidi kama hadli karto anaa jabhad ka samaystay jabhaddana anigaa leh nin reer buuhoodle oo ila hadli karaan ma jiro quruur reer buuhoodle buuhooda maamushaana ma jiro waa ku xoogsanaya reer buuhoodlan dhakada ka haystaa anaa laynaya dariskooda anaa soo laynaya wax dhici kara iyo wax reer buuhoodle u cuntama iyo waxay eegtaan iyo wax loo dulqaato midnaba maaha maantana waxay maraysaa reer buuhoodle dhexdiisa in dib la isugu noqdo oo iyaga dhexdoodii ay kala fadhfadhiyaan oo inta guud ee danta guud ka fekeraysaana ay aragto in reer buuhoodle la isku jibinayo adeer daris bar iyo intaan loo gudbin jabhad baan sameeyey waxaan weerarayaa dariska buuhoodle iyo reeraha dadkay buuhoodle degan yihiin waxaan weerarayaa somaliland waxaan weerarayaa ciddan reer buuhoodle marka ugu horeysa waxaan leeyahay waxgaradka cuqaasha garaadada aamusan dumarka war in idinka dhexdiina hub laysugu kii dhibo nin baayac mushtar doonayo dukaan ka dhigtay jabhad xaqiiq wey iyo nin lacag kusoo taageerayo oo xamar jooga oo reer buuhoodla iyo mid ka qooshaya addisaba in maanta wixii aad ogeydeen ee inta badan aad baragti kusoo qaateen ee mid walba inta dadkii lagu laayay laga dhaqaaqay nin walba meel uu ku taageero doontay wixii uu buuhoodle ku laayay maanta kama dhici karto wax loo dulqaatana ma aha wax loo adkaystana ma aha dadka buuhoodle dhexdiisa in la isku dilaa oo maanta gooni gooni qabiil loo gooyo qoys qoys loo gooyana waa wax ummadda dhexdeeda dhibaato weyn ku ah cid maanta wadata SSC baan ahay wax kale aan ahay waxaa buuhoodle jooga ciidamo somaliland weligood fidna kamay samayn waxaana jooga kuwa garowa fidna ay ka sameeyeen oo ka mushaar qaata fidna ay ka sameeyeen maar 5 bilood iyo wax dheeraada waxaa loo taaglaayahay wiil yaroo yidhi ciidan baan halkan ka samaystay cidina ima xukunto buuhoodle anigaa leh cid hadli kartaa ma jirto waa dhex maraya marba meel baan tegaya dariskaan soo laynaya wallaahi cid u adkaysanaysaa inaani jir reer buuhoodlana way arkaan wax looga aamusaana ma jiro wax kii somaliland u shaqeynaya baan buuhoodle dhibaato ka samaynayn oo ogolayn dhibkeedii kuwa puntland sheegto oo degan oo baan dhibaato ka samaynayn horena fidna uga samaynayn buuhoodlaan ku dhibi shaxlaynaya oo wiilal yararaan soo khalday oo weliba reer buuhoodle iyo u dhammaan iyo aanay u dhoweyn yaan buuhoodle dariskiisana ku leynaya isna ku dhibaataynaya reer buuhoodle maanta jabhad looga sheekayn maayo jabhad looga sheekayn maayo intay timi ka tagtayna khasaaro un kaga tagtayna cid uga warrami mayso meelaan lagu tashan reer buuhoodle ka shirin dhulbahanta ka shirin jabhadda ayaan sameeyey oo macnaheedu yahay waxaan sameeyey dukaan lacagna la iigu soo diro oo rag fidna ku abuuraan anna aan lacag ku helo hubna ku urursado buuhoodle dadka degan iyo aaggiisa guud ahaanna ku laayo anaana meesha ka taliya ya
wax dhici kara iyo wax reer buuhood lagu cuntaba iyo wax loo adkaysto midna ma aha waxaa reer buuhood la ku waajiba inay iska saaraan inay iska soo afjaraan inay joojiyaan ma aha mid anigu danan buuhoodla ka duwan ku jeedinayo iyo midii gaaratoona haddaan aniga lafteeda iminka buuhoodle fidno ka abuurayo in reer buuhoodle shaki qabta wey reer buuhoodle iyo markaa le reer buuhoodle waa degaanka oo dhan inay shaki qabtaan wey in laga egtama mid baa imanaya wuu istaagayaa jabhad baan ka furay buuhoodle rag baanan keenay waxaana ka soo raray haddii beedankeeda leeyahay meelaha la yidhaahdo oodweyne waxaan ka soo raray ceeri gaabo jabhad baan wadaa macnuhu waxa weeye waxaan wadaya dhisayaa qaabaan lacag u helo oo wax laygu meelaha lacag laga soo diro ma aha jabhadii wax ma jiraan buu urursaday eg rag baa wada nin baa odhanaya reer buu hodlaasaa waxay odhanayaa jabhad baa samaystay war jabhadaas silaa ma jirto jabhad buu hoodle iyo caro dhulbaante iyo meel kala toona xoreynaysaa ma jirto waa qaab lacag waa mashruuc xitaa siyaasiyada kuma jirta waa lacag waxaan diyaar u ahay waxaan laynayaa ummadda buuhooda joogta waxaan isku dilayaa dariskooda reer buuhoodle inay ka digtoonaadaan weeye dhulbahanta inuu ka digtoonaada weeye waxaa hanweyne ah oo kibri ah buuhoodlaan jabhad ka samaysta waa hanweyne waa kibir waa dad kala saar wax loo adkaysta ma aha wax layska cesho weeye oo reer buuhoodle iska ceshaan ka yidhi jabhad baan haystaa wallahi inaan nin ka hanweyn oo aanu arag oo ka hanweyn waxay ahayd wuxuu kala boqo afka afkiisa wuxuu kala boqo bay ahayd buuhoodle inuu fidna ka abuurana wuxuu agihii adinkiisa kala baqay ahayd in reer buuhoodle iska celiyaan oo ay si cad isaga celiyaan wey dariskayagaan lagu jabinayn nabadiisa reer buuhoodle nabadiisaan lagu jabinayn dhexdooda oo maanta taagan kuwa u qushuucsan ee tirada yar ee aan buuhoodlaba joogin ee xamar ka fangaraynaya ee meelaha kale ka fangaraynaya waxaan oran lahaa war waad ladan tihiin reer buuhoodlena dhibaato horse aad u noqotaan war ka xishooda war ka xishooda anigu hanka wiilkaa yar waxaa jeedinaya dabageli maayo reer buuhoodlena way iska celinayaan reer buuhoodle dhexdiisana la isku jibin maayo anaana diyaar baanu nahay inaanu kala talino inaan runta u sheegno inaanu wax ka qabanno intaba diyaar baanu nahay wallahi jabhad si laha samayn mayside dukaan baad samaynaysaan inta kugula socotaana waa in yar waxaan odhan lahaa garaadada iyo salaadiinta aamusan garaadada iyo salaadiinta aamusan war buuhoodle xero fidneed waa ka soo daashay buuhoodle xero fidmo way ka soo daashay war maalin la aamuso iyo maalin loo garab yeelo arrinkaas oo kale oo buuhoodlaan dabada iska raacinaya weligeyba dil baan u taagnahay buuhoodle inay baaba'do war ma aha mas-uuliyiinta iyo isimada war ma aha wax laga xishooda wey oo wax ummadda looga tura wey oo wax loo aamusan ma aha ninka ka aamusan ee isina dee inuu raacsan yahay oo ummadda jabinayo oo in laysdilo un laga shaqaynayo war imisaa buuhoodle isdil ka shaqaynaysa imisaa buuhoodle dadkeeda la jabinayay imisaa ku dhibanayay imisa maanta haddaa tanaa jafaalo baqalo soo fuulo wax loo adkaysta maaha somalilan waa la ogyahay hore fidnooyin baa u dhacay maanta mayna fidno buuhoodle ka suuliso oo tiraa war reer buuhoodle dhibaatada fidno buuhoodle ay ka wadaa ma jirto puntland baan ka wadin aanan ku arag raggan ku ceeshaya waxaa ay dukaanka u tahay ee siyaasadda ka dayaya ee mashruuca ee lacagta lagu urursanayo ee reer buuhoodle lagu laynayo ee iyaga lagu kala jebinayo ee iyaga dhexdoodii maanta fidnadu ka taagan tahay markaan buuhoodle leeyahay waa degaankeeda oo dhan
waxaa habboon reer buuhoodlan inay wax ka yidhaahdaan iskana qabtaan inama yaranoo ku adeeganayo lagana cesho waxaanu ballan qaadaynaa ummadda inaan mobilis garayno reer buuhoodlana waa ka hadlayaa wax shaqaynayana ma aha wax dhulbahantana ma aha wax ummad u dhexeeyana ma aha wax jirana ma aha sida ugu habboon reer buuhoodla inay uga hadlaan waxaana iska suuliyaan iminka wixii laga bilaabana in badan baan ka aamusnayn waxqabadka buuhoodla laga qabanayo in arrintaa laga dhamaystiran yaanu ka qayb qaadanina in laga sifeeyo yaanu ka qayb qaadanina wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu